waxaan halkan ka soo jeedin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo go'aamadii iyo warmartiyeedkii ka soo baxay shirweynaha samatalis ee ay ku yeesheen beelaha habar jecle iyo garxajiis caasimadda labaad ee jamhuuriyadda somalilan burco. bismi illaahi raxmaani raxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 3 2020 waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer burco shirweynihii samatalis 1 ama 1 shirkaas oo ay ka soo qayb galeen haldoorka labada beelood sida hoggaanka dhaqanka, culimada, ganacsatada iyo aqoon-yahanka. waxaana shirka si qoto dheer loogu lafaguray ajandayaasha shirka hor yaalay oo ahaa 1 turxaan bixin iyo islaab xaadasho, 2 dhammaystirka nabadda gobolka Sanaag, 3 horumarinta deegaamada labada beelood wada degaan, 4 xaaladda guud ee dalka. gabagabadii shirka waxaa la isla gartay qodobada hoos ku qoran. 1 maadaama aynu nahay dad muslim ah, diinteenna suubanina inoo jidaysay wax kasta oo wanaagsan iyo maslaxadi wanaag iyo maslaxadi ku jirto aakhiro iyo adduunyaba, ayna tahay xalka dhibaato kasta oo haysata bulshadeenna lagaga bixi karo, isla mar ahaantaana distoorkeennu ku salaysan yahay. shirku waxa uu ku baaqayaa in xukuumaddu hirgeliso ku dhaqanka shareecada islaamka. 2 waxaa heshiis iyo is-afgarad buuxa laga gaadhay wixii tabashooyin jiray beelaha dhexdooda, waxayna ku dhammaysteen walaalnimo iyo is-afgarad. sidoo kalena waxay ugu baaqayaan bulshada kale ee reer Somaliland dhammaantood inay sidaas oo kale walaalo noqdaan oo gacmaha isqabsadaan dhammaantoodba. 3 in la dhammaystiro wixii ka harsan nabadda gobolka Sanaag. arrintaas waxaa loo xil saaray guddi ka kooban 21 xubnood oo isugu jira salaadiin, cuqaal iyo waxgarad. guddigaas oo aanay ku jirin ardaayada wax kala gaadheen. 4 waxay labada beelood isla qaateen in si wada jir ah wax looga qabto horumarinta deegaamada ay wada degaan sida tacliinta, caafimaadka, wadooyinka iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah. arrintaana waxaa loo magacaabay guddi guud oo ka kooban 25 xubnood. 5 guddiyada horumarineed ee heer gobol waxaa ka mid noqonaya beelaha kale ee deegaanka ah. 6 si loo xaqiijiyo loona taabageliyo go'aamada taariikhiga ah ee ka soo baxay shirkan, waxaa loo xil saaray guddiyada labada beelood iyo hoggaanka dhaqanka. waxaa kaloo labada beelood warmurtiyeed ka soo saareen xaaladda guud ee dalka iyo duruufaha ku xeeran. qodobka 1 waa in la wada ilaaliyo qarannimada iyo midnimada Somaliland. 2 golayaasha qaranku waa in aanay ansixin xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka. 3 shirku wuxuu ugu baaqayaa golaha guurtida in uu ansixiyo guddigii culimada ee dastuuriga ahayd. 4 shirku wuxuu si buuxda u taageerayaa go'aankii ay wada qaateen xukuumadda iyo axsaabta qaranka ee ahaa in sanadkan gudihiisa 2020 la qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. 5 shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda inay fuliso heshiiskii ay la gashay khaatumo.
6 waxaa kale oo shirku ugu baaqayaa xukuumadda Somaliland inay si cadaalad ah iyo sinaan ah u qaybiso xilalka dawliga ah iyo mashaariicda horumarineed. 7 si loo wajaho isbeddelka geeska ka socda geeska Afrika iyo arrimaha masiiriga ah, shirku wuxuu ku talinayaa in xukuumaddu wadatashi mugle kala yeelato golayaasha qaranka, axsaabta iyo qaybaha kale ee bulshada, iyada oo la ilaalinayo dastuurka qaranka lana dhowrayo madax bannaanida iyo midnimada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. 8 xanuunka caalamka ka dilaacay ee coronavirus, shirku wuxuu ku talinayaa in Ilaahay la tala saarto, ducadana la badiyo, taxadar caafimaadna la qaato. 9 shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan darisyada nabad ku wada noolaansho iyo walaalnimo. Wabillahi tawfiiq.